Asxaabay sidaad u jeedaan ninka booliska ah naagta muxuu ceersanaa isleedihiin adduunka waxaa ka jira meela wadada laga gooyo naagta meel khaldan ee wadada ka goysay aan la ogolaynin marka sidaa darteed waa lagu dhagay hadda waa la ganaaxayaa oo lacag waxaa laga qaadayaa in ka badan $300 naagta asal ahaan uma dhalan wadanka ay hadda joogto oo lagu qabsanayo naagta waxay kasoo jeedaa Indonesia asal ahaan laakiin wadada ay ka goysay meel khaldan marka ganaax adag $300 lagu ganaaxayaa sidoo kale midaan aad arkaysaan oo wadada goynaysiidana sidoo kale waa la ganaaxayaa qof kastoo wadada meel khaldan ka gooyo meesha loogu talagalay meel ahna ka gooyo waa la ganaaxaa hadda ujeedaa waa lagu soo baxay lagama haraayo oo meesha gasho laga dabagalayaa marka adduunyada waxaa ka jira system iyo nidaam sharci adag wadadaas yarta ee meesha khaldan ka goysay $300 ayaa laga rabaa hadda oo ganaax ah haddii diidana waxa waaye jeelka yaqaana tusaale ahaan adigoo wadada ka goynaya meeshaas loogu talagalay karooska hadduu gaari ku dilo kala ama gaari ku jiiro kale tilaabo adag laga qaadayaa oo ganaax adag lagu soo rogayaa iyo dembi adag oo muxuu ahaay maxkamad soo taagayaa laakiin haddaad adiga meesha ahayn aad ka goysid oo kale dee waxa waaye markaas gaariga dembi uu leeyahay laakiin adigana dembiyaa leedahay markaas oo kale oo waxaa laga yaabaa waxba laguma xisaabayo dhibka ku gaaray waxa waaye adiga ilaa qalad sameeyay marka iska ilaali adduunka markaad joogtid la wadankeena kama jiro ognahay